Kabtan Ibrahim Traore waxaa jirta su'aal qoto dheer oo maanta dunida ka taagan. Sidee bay Afrika u keeni kartaa hoggaan cusub oo da'yar ah, leh dhiirigelin, geesinimo iyo aragti mustaqbal? Waxaa jira nin la yiraahdo Ibrahim Traore, hogaamiyaha ugu da'da yar ee Afrika, maantana haysta talada waddan dhan. Qisadiisu waa mid xiiso leh, muran dhalisay, isla markaana tusaale u noqotay jiilka cusub ee Afrika. Qof walba wuxuu isweydiinayaa, hogaamiye da'yar oo 34 jir ah, sidee ayuu ku qabsaday kursiga? Maxaase uu kaga duwan yahay kuwii ka horeeyay? Halkaas ayaa mowduuca si toos ah ugu bilaabanaya. Ibrahim Traore wuxuu ku dhashay Irandaabu ee dalka Burkina Faso sanadkii 1988. Wuxuu ku soo barbaaray qoys aadi ah oo aan awood badan lahayn, balse waxaa lagu yaqaanay maskax iyo karti uu kaga dhex muuqday dadka deegaanka. Dhalinyaronimadiisii wuxuu xiise weyn u qabay. Waxaa la sheegaa inuu aad u jeclaa taariikhda halgamayaasha Afrika, gaar ahaan hogaamiyihii weynaa ee Thomas Sankara oo ahaa halgamaa dhalinyaro ah oo hogaamiyey isla dalka Burkina Faso sanadihii 80-meeyadii. Markii uu dhammaystay dugsiga sare, Traore wuxuu galay kulliyadda ciidanka ee dalkaasi, halkaas oo uu ku bartay xeeladaha dagaalka iyo hogaaminta. Waxaa lagu tilmaamaa askari geesi ah oo aan cabsi lahayn, balse sidoo kale leh xushmad iyo daryeel uu u muujiyo askarta uu la shaqeeyo. Sanadihii dambe wuxuu ka qayb galay dagaallo ka dhan ahaa kooxaha hubaysan ee ka dagaalama Burkina Faso iyo sahalka guud ahaan. Halkaas ayuu ku dhistay sumcadiisa, wuxuuna noqday nin si weyn loogu aaminay gudaha ciidanka. Waxaa xusid mudan in Traore aanu ahayn qof ku dhashay xukunka iyo qoys siyaasadeed oo hoggaan, taasoo ka dhigaysa in dadka reer Burkina Faso ay u arkeen wiil caadi ah oo ka soo baxay dadka. Taasna waxay siinaysaa kalgacal gaar ah oo shacabka dhexdiisa ah. Ibrahim Traore sidee uu talada ku qabsaday? Sidee tahay siyaasadda uu wado? Sanadihii u dambeeyay, Burkina Faso waxaa ku soo batay weerarada kooxaha hubaysan ee loo yaqaano jihaadiyiinta sahalka. Kooxahaasi waxay dileen kumanaan qof, waxayna barakiciyeen malaayiin shacab ah. Xukuumadihii isbedelayay ma aysan awoodin inay xalliyaan mushkiladaas, taasoo shacabka ku beertay niyad jab iyo caro. Halkaas ayuu fursad ka helay Ibrahim Traore bishii Sebtembar 2022, isagoo ahaa kabtan ciidan. Traore wuxuu hogaamiyey afgembi ka dhan ah madaxweynihii xilligaas, Paul Henri Damiba, oo isna xukunka ku yimid afgembi 8 bilood ka hor. Dadka badankoodu waxay u arkeen afgembiga Traore kacdoon dhalinyaro oo muujinaya rabitaanka jiilka cusub ee Burkina Faso. Markii uu xukunka qabsaday, Traore wuxuu noqday madaxweynihii ugu da'da yaraa ee dunida xilka haya oo 34 sano jir keliya ahaa. Arrintaas waxay dhalisay dood caalami ah. Qaar waxay ku ammaaneen geesinimada iyo dhiiranaanta dhalinyarada, halka qaarna ay ku dhaliileen inuu yahay askari aan khibrad badan lahayn. Siyaasadda uu watay waxay hooga saartay 2 qodob. La dagaalanka argagixisada gudaha. Traore wuxuu si weyn u balaariyay howlgallada militariga. Wuxuu dhiirigeliyay in dhalinyarada shacabka ah loo sameeyo tababar ciidan si ay dalkooda uga difaacaan kooxaha hubaysan. Wuxuu sheegay in Burkina Faso aysan mar dambe ku tiirsanaan doonin quwado shisheeye oo aan natiijo muuqata keenin. 2. Xiriirka dibadda.
iyo go'aano ka dhan ah reer galbeedka. Waxaa la arkay inuu ka fogaaday xiriirkii hogga badnaa ee Burkina Faso la lahayd Faransiiska. Wuxuu dalbaday in ciidamada Faransiiska ay dalka ka baxaan. Dhanka kale, wuxuu xiriir dhow la sameeyay wadamada sida Russia, isagoo taageero militari iyo mid farsamo ka dalbaday. Tani waxay ku tusinaysaa inuu doonayo isbeddel cusub oo Afrika u horseeda madax-bannaani ka dhanka ah awoodaha reer galbeedka. Shacab badan oo reer Burkina Faso ah ayaa ku taageeray, iyagoo ku tilmaamay wiil geesi ah oo u istaagay difaaca qaranka. Waxaa lagu arkay banaanbaxyo waaweyn oo shacabka taageeraya ay sitaan calanka Burkina Faso iyo sawirkiisa. Hase yeeshee, mucaaradkiisu waxay ku dhaliileen in hoggaankiisu uu ku salaysan yahay xoog ciidan, isla markaana aysan jirin nidaam dimuqraadi ah oo cad. Ibrahim Traoré, waxyaabaha uu ku fiican yahay, waxyaabaha uu ku liito, iyo mustaqbalka suurtagalka ah. Marka laga hadlayo Ibrahim Traoré, dadka reer Burkina Faso iyo guud ahaan Afrika waxay arkaan laba wajibaad oo iskhilaafsan. Ibrahim Traoré waxa uu ku fiican yahay 1. Hoggaaminta dhalinyarada. Traoré wuxuu noqday astaan dhalinyarada Afrika ku dhiiragelisay inay rumaystaan in hoggaaminta aysan ahayn mid keliya loogu talagalay dadka da'da ah. Traoré wuxuu noqday mid ka soo horjeeda cadaadiska dibadda iyo awoodaha reer galbeedka. 2. Dhiiranaanta iyo geesinimada. Wuxuu si cad ugu dhawaaqay in dalkiisu ka madax bannaan yahay awood kasta oo shisheeye doonaysa inay gacanta ku dhigto. Wuxuu ku baraarujiyay shacabka in difaaca dalka uu yahay mas'uuliyad wadareed oo aysan ciidanka keliya u taagnayn. 3. Hirgelinta siyaasadda madax-bannaanida Afrika. Traoré wuxuu qayb ka yahay hoggaamiyaasha cusub ee sahalka sida Mali iyo Niger oo ku dhawaaqeen inay rabaan Afrika madax bannaan oo aan ku tiirsanayn quwadaha reer galbeedka. Wuxuu ka shaqeeyay in wadamada sahalka ay samaystaan iskaashi ciidan iyo mid dhaqaale. Ibrahim Traoré waxa uu ku liito 1. Karti siyaasadeed oo kooban. Inkastoo uu yahay geesi ciidan, haddana khibradda siyaasadeed ee qotada dheer ayaa ku yarayd. Tani waxay keentay in siyaasadihiisa gudaha ay noqoto mid aan nidaam iyo qorshe rasmi ah lahayn. 2. Dimuqraadiyadda oo wiiqatay. Maadaama uu talada ku yimid afgembi, nidaamka doorashada iyo codka shacabka waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay mid hakad galay. Qaar badan waxay ku dhaliileen inuu xoog ku sii haysto xukunka halkii uu shacabka u ogolaan lahaa doorasho hor ah. 3. Cadaadis dibadeed. Xiriirkii uu joojiyay ee Faransiiska iyo taageerada uu u doorsaday ee Ruushka ayaa dhaliyay cadaadis caalami ah. Waa su'aal weyn oo taagan in dhaqaalaha Burkina Faso uu ku jiri karo xaalad adag haddii uu lumiyo taageerada dhaqaale ee reer galbeedka. Mustaqbalka Ibrahim Traoré wuxuu u muuqdaa mid mugdi iyo rajo isugu jira. Haddii uu guulaysto dagaalka ka dhanka ah kooxaha hubaysan, wuxuu noqon doonaa geesi qaran iyo astaan Afrika oo dhan ka mid ah. Haddii uu guuldaraysto, waxaa suurtagal ah in shacabkiisa ay niyad jabaan, taasoo horseedi karta kacdoon kale ama afgembi cusub. Dunida oo dhan ayaa si dhow u eegaysa wiilkan 34 jirka ah ma noqon doonaa hoggaamiye soo jiita taariikhda Afrika, mise wuxuu noqon doonaa hoggaamiye kale oo militari ah oo ku baabaa awood. Ugu dambayn, Ibrahim Traoré waa hoggaamiye dhalinyaro ah oo ka dhex muuqda xaalad murugo iyo dagaal isugu jiraan, isagoo shacabka ku abuuray rajo iyo dareen wadaniyad. Laakiin sidoo kale waa hoggaamiye wali wajahaya caqabado culus oo ku saabsan dimuqraadiyadda, dhaqaalaha iyo xiriirka caalamiga ah. Waxa uu ku fiican yahay dhiiranaanta, madax-bannaanida iyo kalsooni abuurka shacabka, halka uu ku liito kartida siyaasadeed
iyo dhismaha nidaam dimuqraadi ah oo waara. Dunida inteeda kale waxay sugaysaa natiijada Ibrahim Traore. Ma noqon doonaa Mandela cusub oo Afrika rajo u horseeda, mise wuxuu noqon doonaa hogaamiye kale oo taariikhdiisa ku dhamaata afgembi?